dowladda federaalka Soomaaliya ayaa degmada Beled Xaawo ee gobolka Gedo ay ka bilowday diiwaangelinta ciidamo cusub kuwaas oo ay ka mid noqon doonaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee halkaasi ee gobolka Gedo ay kaga difaaci doonaan dowladda guud ahaan dhulka ee Soomaalida. degmada Gedo ee gobolka Gedo ayaa waxaa ka bilowday diiwaangelinta ciidamo cusub kuwaas oo lagu sheegay inay ahaayeen ciidamadii ay garab ay ku siiyeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed isla markaana ay ka tirsanaayeen markii hore ciidamada Jubbaland kuwaas oo la sheegay inay jabiyeen ciidanka uu lahaa Axmed Madoobe halkaasina ay ku jabiyeen kadib markii oo dagaalkii bishii la soo dhaafay oo dhexmaray dowladda federaalka Soomaaliya iyo ciidamada Jubbaland. ciidamada Jubbaland ee ka qayb qaatay ee dagaalka isla markaana la saftay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee si rasmi ah ugu mid noqdeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. sidoo kale ciidamadii beeleedii oo hubaysanaa ay ka mid ahaayeen macawisley halkaasi ay dagaalka kula jiray ciidamada Axmed Madoobe ayaa iyaguna dowladda federaalka Soomaaliya ay siisay hub iyo sidoo kale saanad ay ugu sidoo kalena la sheegay inay ka mid noqon doonaan ciidamada xoogga ee dalka Soomaaliyeed. dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay in halkaasi iminka ay u joogaan isla markaana ay yihiin ciidamo ka soo jeeda ee gobolka Gedo tiradoodana ay gaarayso ilaa iyo 500 markii horena ay ka tirsanaayeen ciidamada Jubbaland ay si rasmi ah ugu biireen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. dowladda Soomaaliya ayaa wado qorshe ay ugu soo manguurinayso ciidamadii Jubbaland isla markaana ay ku soo biirinayso ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed si Axmed Madoobe ay ula dagaalamaan halkaasi Kismaayo iyo Jubbaland ay ugu saaraan si Jubbaland ay u noqoto maamul ka madax banaan madaxweyne Axmed Madoobe. qorshahan ayaa qorshaha dowladda federaalka Soomaaliya halkaasi ay ka wado isla markaana ciidamada ayaa la sheegay in qayb ka mid ah ay ka mid noqon doonaan ciidamada NISA ee halkaasi ka howlgalaya Cabdirashiid Janan iyo saraakiisha la socota ayaa la sheegay inay soo xirigelinayaan saraakiisha kale ee ka soo horjeeda isla markaana ay la jiraan Axmed Madoobe iyagoo difaacaya Jubbaland loo sheegayna ballanqaad ay u sameysay dowladda federaalka Soomaaliya inay u fidin doonto cafis haddii ay soo dhiibaan sidoo kalena ay u ballanqaaday inay ka mid noqon doonaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ama kuwa NISA ay ka howlgali doono Jubbaland. ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya qortay ayaa isugu jira maleeshiya beelad la siiyay labiska ciidanka xoogga dalka iyo kuwa hay'adda nabad sugidda iyo waliba qaar ka mid ah ciidanka Jubbaland oo saraakiishoodii lagu qanciyay inay ku soo biiraan ciidanka dowladda federaalka iyadoo soo xirgelintooda dhaqaale badan lagu bixiyay. ciidamo yar ayaa horey u joogay ee dowladda federaalka magaalada balse maanta tirada ku sugan halkaasi waxaa lagu qiyaasaa ilaa 500 oo askari waxaana weli socda qorista ciidamo cusub oo lagu tababaro ee Beled Xaawo. Cabdirashiid Janan ay taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka Jubbaland ahna madaxa amniga gobolka Gedo iyo saraakiil kale oo ku sugan xerada ciidanka xoogga dalka ee UK ku leh duleedka bari ee Beled Xaawo ayaa halkaasi ku diyaarinaya ciidamada cusub. dowladda federaalka ayaa wax gurmad ciidan ah ka dejin xerada UK marka laga reebo diyaaradda helicopter oo saraakiil deegaanka u dhashay ee ku geysay halkaasi kuwaas oo Cabdirashiid Janan kala shaqeynaya qarameynta ciidamada. dhanka kale dowladda federaalka Soomaaliya ayaa soo gabagabeysay qarameynta ciidamadii hore ugu sugnaa ee degmooyinka Garbahaarey iyo Buurdhuubo iyadoo hadda u jeesatay dhismaha ciidanka Jubbaland ee ku sugan Luuq, Baardheere iyo Ceelwaaq si looga diiwaangeliyo ciidanka dowladda federaalka loona siiyo mushaar iyo gunnada ay qaataan ciidamada kale. ciidamada hadda ee diyaarka ah ee ku sugan ee gobolka Gedo ayaa lagu qiyaasaa in ka badan 2,000 oo askari kuwaas oo intooda badan ay ku sugan yihiin Ceelwaaq iyo deegaag iyo sidoo kale deegaanka xuduudka ku yaala ee Gariley. ciidamadan badankoodii waa ciidanka daraawiishta Jubbaland ee ka amar qaata General Cabbaas Ibraahim Gurey. Korneel Aadan Axmed Xirsi oo ka tirsan saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee gobolka ayaa sheegay in qorshaha lagu qarameynayo ciidamadaasi uu meel wanaagsan marayo hase yeeshee General Cabbaas Ibraahim Gurey oo muddooyinkan sidoo kale ku magacaabnaa taliyaha daraawiishta Jubbaland ee gobolka weli kama hadlin arrimahaasi. jaranka waxaa si dhow loola xiriirayaa madaxda Jubbaland mana jirto meel uu ilaayo hadda ay kaga taageeray isbedelada dowladda federaalka ee ka wado ee gobolkaasi. inkastoo gudoomiyaha degmada Ceelwaaq Ibraahim Guuleed Aadan uu doorbidayo inuu ka sii hoos shaqeeyo Jubbaland haddana la sheegay inuusan mabda ahaan diidmo adag u qabin inuu la shaqeeyo dowladda federaalka marka la eego gudoomiye Lafay oo gebi ahaanba diidan inuu ka tago Jubbaland.
ilo lagu kalsoon yahay ayaa sheegay saraakiisha dowladda federaalka toddobaadadii lasoo dhaafay dhaqaale badan u adeegsanayeen sidii ay ku kala furfuri lahaayeen guddoomiyayaasha degmooyinka ee gobolka Gedo ee taabacsan Jubbaland. saraakiishu waxay qorsheynayaan garab ay ugu helayaan sidoo kalena isku dayo siyaasadeed oo lagu doonayo in dhanka dowladda loo soo jiido siyaasiyiinta odayaasha iyo waxgaradka reer Gedo ee xiriirka dowladda leh madaxtooyada Jubbaland si loo wiiqo taageerada shacabka ee gobolka ee madaxweyne Axmed Islaam iyo ku-xigeenkiisa Maxamuud Sayid Aadan. villa Soomaaliya ayaa ku rajabeen in maamulka gobolka oo dhan si dhaqso leh looga horkeeno ee dowladda federaalka loo hoskeeno dowladda federaalka Soomaaliya iyadoo la ogyahay muhiimadda gobolkaasi uu leeyahay doorashada madaxtinimada dalka ee sanadka soo socda haddii lagu heshiiyo in dalka doorasho lagu qabto. dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa bishii Julaay sanadii 2023 maamulka gobolka Gedo dib ugu hoosgeysay ee Jubbaland kadib dhowr sano oo gobolkaasi ka go'ay ee maamulka Jubbaland. mar kale dowladda federaalka Soomaaliya waxay dadaalo xoogan ugu jirtaa sidii ay u qarameyn lahayd dhammaan ciidamada Jubbaland iyadoo sidoo kalena maamulkaasi dowladda federaalka Soomaaliya ay ka shaqeynayso sidii ay mar kale u hooskeeni lahayd ee dowladda federaalka Soomaaliya sidii markii horeba gobolka Gedo ay u hoosgeysay ee Jubbaland. imika waa qorshe cusub ee dowladda federaalka Soomaaliya ay wado taa ay ku doonayso in ciidamo gaar ah ay yeeshaan maamul goboleedyada looga duwan yahay sidoo kalena looga fiican yahay taa beddelkeeda ciidamada halkaasi jooga ay noqdaan kuwo u shaqeeya dowladda federaalka Soomaaliya si toos ah uga amar qaataan taliska xoogga dalka Soomaaliyeed isla markaana aysan amar ka qaadin madax maamul goboleed